السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kasta joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. madaxweyne farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo ku kulmi doona magaalada Nairobi ee dalka Kenya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu xalay aqbalay casuumaad booqasho oo ku taga caasimada dalka Kenya ee Nairobi, waxayna arintaas calaamad u tahay dejinta xiisadii ka taagneed isniintii hore ee sare u kacday. madaxweyne Farmaajo oo shalay la kulmay ergeyga khaaska ah ee madaxweynaha Kenya ahna wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dalkaas Fariid Matiang'i waxa uu muujiyay inuu la kulmi doono hogaamiyaha Kenya inkastoo aan weli la shaan xilliga rasmiga ah ee booqashadaas ee dhici doonto. dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dalkaasi ayaa loo arkaa in aan ku lug lahayn khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya sida laga soo xigtay Cabdiqaadir Maxamed oo mar ahaa xildhibaan iyo la taliye sharciga ee madaxtooyada. warar ayaa sheegay in cadaadis ka yimid dowladda Mareykanka iyo dhexdhexaadinta dadban ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ka dambeysay in labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya khadka taleefanka ku wada hadleen Khamiistii la soo dhaafay kuna go'aansan in la dhiso guddi labada dhinac oo ka wada xaajooda ammaanka xuduudka. ila wareed ayaa sheegay in wada hadalka madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ka dambeysay codsiga dowladda Mareykanka maalgelisay ciidanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka codsaday madaxweyne Farmaajo inuu si toos ah ula hadlo madaxweyne Uhuru Kenyatta. si kastaba ha ahaatee xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay ku soo beegantay dhowr bilood ka hor markii maxkamadda garsoorka caalamiga ah ee loo soo gaabiyo ICJ bisha June dhageysan doonto kana gaari doonto go'aan garmaqalka dacwadda muranka xuduud badeedka oo ay Kenya ku sheeganayso milkiyadda qayb ka mid ah xuduud badeedka Soomaaliya ee badweynta Hindiya. odayaal ku soo dhawaada Daalacan Media oo aan idinku soo bandhigi doono warar, warbixino, dhacdooyin, sheekooyin iyo wacdaraha kale ee la yaabka caalamka. fadlan daawade saar, subscribe, share iyo like ka mid noqo macaamiisha Daalacan Media. mahadsanidin.